السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهديته أرضيدا ku guuleysteen tartankii bishii Ramadaan walaalaha marka ardayda ku guuleysatay wixii su'aal ay noo qabaan ama na weydiinayaan fadlan waxaad samaysaan waxaad email igu soo dirtaa macluumaadkaaga info@somalicomputer.com info@somalicomputer.com marka waxa waaye ardayda ku guuleysatay inay su'aalaha ka soo jawaabaan kow waxa waaye ruwayda maxamed waxaan leenahay mabruuk iyada ayaa kaalinta koowaad heshay waxaa kaloo ku xigta oo isku dayday walaasheen amaal axmed iyadana dhowr su'aalood bay kasoo jawaabtay khayr allah siiyo walaasheen xaliimo sacdiya oo magaceeda xaliimo sacdiya ah iyadana waxay ka mid tahay qofka saddexaad ee kasoo jawaabay marka gabdhahaas allaha barakeeyo dhammaantooda iyo reerahooda iyo ehelkoodaba maxay helayaan ardaydaas ardayda kaalinta koowaad galay wuxuu xaq u leeyahay 1 sano ogolaansho ah waxbarasho online bilaash waa free access wuxuuna dooran karaa koorsada uu rabo ardayga isaga choice-ka leh isaga ayaa iska leh doorashada wuxuu ka qayb galaya marka kow wuxuu ka qayb gali karaa IT ama ICT course free all IT oo ah wixii IT ka socda website-keena oo la baranayo haddii noqon lahayd PC repairing haddii noqon lahayd web design haddii noqon lahayd application haddii noqon lahayd Microsoft Office waxyaalaha la midka ah koorsooyinka ardayda marka ay ku xiran yihiin barashada af Soomaaliga haddii uu qofka rabo wuxuu ka qayb gali karaa barashada af Soomaaliga ah buugga koowaad buugga labaad iyo bilowga af Soomaaliga oo lala fadhiisanayo qodobka saddexaad waxa weeye learn English book 1 inuu maaragtay buugga koowaad inuu barta oo luqadda Englishka oo laga dhiso kan afraad waxa weeye luqadda Carabiga Madina book lagu magacaabo al-Carabiya luqadda al-Carabiya بخير ناطقين lagu magacaabo iyadana tan shanaad waxa weeye theory driving license only that language ayuu ku bixi doonaa oo ah theory auto riding waxay dhahaan baabuurka la wadaayo oo luqadda Afrolandeska ku baxay isagana oo luqadda theory-ga oo ah tabeelayaasha iyo sharciyada in la baro ardayga haddii ay luqaddaas qofka u yaqaano ardayda marka maxay helayaan ardayda galay kaalinta labaad iyo saddexaad waxay xaq u yeelanayaan hal koorso keliya hal koorso access ayay leeyihiin inay ka doortaan kuwaas hoosta ku yaala hal koorsada waxa laga yaabaa inay 3 bilood socota waxa laga yaabaa inay 2 bilood socota intaas hadday u dhamaato ayuu free access leeyahay maadaama kaalinta labaad iyo saddexaad ay galeen kow farbarashada qur-aanka inuu ka barto Joyce mala isaga hadduu farbarashada uu yiraahdo ka qayb galaya wax kale kama qayb gali karo tafsiirka qur-aanka kariimka oo isagana baxa oo hadda maray suuratu shamsi kitaabka safiinatu najaa oo filaya isagana qaarna bilaawa qaarna dhaxda la marayo oo fasaxi koor la bilaabay afar luqadda af carabiga oo buugga koowaad ah afartaas fursadood ay helayaan ardayga koowaad iyo ardayga saddexaad ardayga koowaadna xaq u leeyahay hadduu rabo kuwaas uu ka qayb gali karaa isaga choice iska leh laakiin ardayda labaad iyo saddexaad iyaga ma lahan doorashada marka waa ardayda hadiyadahan ugu talagalnay sida hore u sheegnayba waxbarasho ayaa anaga inta badan sabor garaynaa marka wixii waxbarasho ayaan ku sabor garaynaynaa ardayga kaalinta koowaad marka hadduu isaga oo maaragtay ayaa hadiyadaas iska leh haddii marka isaga waxaan u ogol lahay uu rabin owlaad haysto owlaadiisa lagu bedeli karaa laakiin insha allah waxay nagala soo xiriiraya info@somalicomputer.com waad ku mahadsantihiin daawashadan videogan ardayda dadka walaalaha dhammaan waxaan leenahay meel kasta dunida ka joogtaanba mar labaad ciid wanaagsan anuu cabdiliif aadan waxaa idinkaga tegay ammaano allah